بسنة نبوية تشفي الصدور وترتقي بالنفس دوما للعلا في طاعة الله ورضاه في طاعة الله ورضاه. لكن شرا قد بدا في الأفق يجتاح الأمان كالريح تقتلع الحياة كالموت يأتي بالأجل. أين المفر يا إخوتي حولي تلال من دمار ساد الفساد بأرضنا كالعود أجت فيه نار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa halkani waa studio telefishinka caalamiga Somali News magaalada Jidda dalka boqortooyada Saudi Arabia. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadka iyo bariga dhexe. daawadayaal barnaamijka toddobaadka iyo bariga dhexe waa barnaamij toddobaadle ah oo isla markaana idinkaga imanaya studio telefishinka caalamiga Somali News magaalada Jidda dalka boqortooyada Saudi Arabia. barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhacdooyinka ugu waaweyn oo ugu xiisaha badan ee toddobaadkaasi soo mara wadamada bariga dhexe. barnaamijka inta aan ku guda jirno waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob aan isdhehi karayno daawadayaasheenu aad bay u raali gelin doonaan ama aad bay u xiiso gelin doonaan. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubin aan ugu magac darnay xubinta jaaliyadaha, taas oo aanu ku eegi doono jaaliyadaha Soomaaliyeed ee adduunka oo aanu ku soo bandhigi doono waxqabadkooda ama xaaladahooda nololeed iyo sida ay waqtigaasi jawigoodu u yahay. haddaba daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka, balse markan qodobada aad ku daawanaysaan maxaa ugu waaweyn. kooxda Daesh oo ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa waxa ay la wareegeen deegaano hor leh oo ku yaala dalkaasi Syria. shiinaha oo awoodiisa military ku soo bandhigay dhoolatus 12,000 oo ciidan ay ka qayb galeen madaxweynaha dalkaasi oo ka qayb galay. barnaamijka ayaad ku daawanaysaan. boqor loogu hanjabay inuu bixiyo 3 milyan oo euro haddii kalena warbixin sir oo laga hayo la faafin doono. iyo qaxooti fara badan oo gaaray qaar ka mid ah wadamada reer Yurub. sidoo kale kama marna barnaamijka aad ku daawan doontaan xubinteeni jaaliyadaha oo aanu ku wareysanayno Xasan Cabdi Diriye oo isagu ah siyaasi Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan boqortooyada Saudi Arabia. meel walba aad joogtaan daawadayaal waxaan idin leenahay daawasho wanaagsan. daawadayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan. qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aad ku daawanaysaan waxa uu yahay kooxda Daesh oo toddobaadkan iyadoo la wareegtay deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi Syria oo ay ka arriminayeen qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka iyagu ka horjeeda dawladda Bashar al-Assad.
daawasho wanaagsan. Kooxda Daesh oo ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa gacanta ku dhigtay dhowr deegaan oo ku yaala magaalada Xalab ee dalkaasi Syria. kooxdan ayaa dagaalo qaraar la gashay ciidamada dowladda dalkaasi ee Bashar al-Assad iyo qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka oo ay ku kala fikir duwan yihiin dagaalka ay kula jiraan dowladda. deegaanadii ay la wareegeen waxaa ka mid ahaa deegaanada caanka ah ee Dalxa, Sandaf, Harjala iyo kuwa kale oo halka ku yaala. goobahaasi oo ay la wareegeen kooxda Daesh ayaa waxay ahaayeen kuwa ka arrimin jiray 90% kooxaha mucaaradka, iyaguna kooxaha mucaaradka dib u gurasho ay sameeyeen. kooxaha mucaaradka kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ayaa kooxda Daesh oo gudaha u galay magaalooyinkaasi waxay durbaba saldhigyada booliska iyo goobaha kale ee dowladda ay leedahay waxay ka taageen calamka lagu garto kooxdaasi. waxaana dadka deegaanku ay ku wargeliyeen in halkaasi ay la wareegeen dowladda khilaafada islaamka oo loo yaqaano kooxda Daesh. dadka kale waxaa jiray barakac hoggaan oo ay sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyagoona gaaray xadka Suuriya ay la wadaagto dalka Turkiga. deegaanada Daesh ay la wareegeen ayaa waxay yihiin kuwo istiraatiiji ah oo xad la leh Turkiga. 5 sano ayaa laga joogaa markii mushkiladaha dalkaasi Syria ay ka bilowdeen, mana jiraan wax xal ah oo iminka laga gaaray, iyadoona hore ay u fashilmeen heshiisyo fara badan oo la isku dayay in lagu damiyo dabka ka holcaya dalkaasi Syria. golaha daawadayaal weli waxaanu ku jirnaa barnaamijka toddobaadka iyo bariga dhexe. qodobka labaad ee barnaamijka aad ku daawanaysaan ayaa waxa uu yahay Shiinaha oo toddobaadkani awoodiisa military ku soo bandhigay bandhig markaasi ay ka qayb galayeen in ka badan 12,000 oo ciidamada militaarka taas iyo waliba kun kale oo ka socday 17 wadan. warbixin xiiso leh ayaan idinkaga haynaa, daawasho wanaagsan. dowladuskan military ayaa mid aad u xiiso badan waxaana lagu dabaaldegayay 70 guuradii ka soo wareegatay dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduun weynaha. dowladuskan ballaaran oo lagu qabtay saaxada Tiananmen ee dhacda magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi Shiinaha. cududa military ayaa waxaa lagu soo bandhigay cududa military iyadoona markii ugu horeysay halkaasi lagu soo bandhigay sawaariikh cusub oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay. 10 sawaariikha ayaa goobtaasi lagu soo bandhigay oo nooceedu ahaa DF-21D taasi oo loo yaqaan dilayaasha diyaaradaha. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in sawaariikhdan ay awood u leedahay inay dhulka soo dhigaan diyaaradaha dagaalka casriga xilligan. xawaaraha sawaariikhdan ayaa la sheegay inay gaarayaan 900 kilomitir ilaa 1000 kilomitir, taasoo awood u leh in hawada ay uga baxdo kuna soo noqoto degdeg lagu qiyaasay 3500 kilomitir saacadiiba. waxaana la sheegay inay ka dhigan tahay gebi ahaanba ay baabi'in karto difaacyada cirka xilligan. 12,000 oo ciidanka Shiineeska ayaa ka qayb galay dowladtuskaasi, halka dhanka kale ay qayb ay ka ahaayeen 1,000 askari oo 17 dowladood oo caalamka kala socday oo ay ka mid ahaayeen dalalka Ruushka iyo waliba Masar iyo kuwa kale. madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping oo isagu bandhigaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu wadamada kale caalamka afoodo iyo dagaal uusan u horseedi doonin, balse hadafkoodu uu yahay in Shiinaha nabad iyo ixtiraam caalamka kale u kula noolaan. boqorka dalkaasi Morocco Mohamed Assadis ayaa loogu hanjabay inuu bixiyo 3 milyan oo euro haddii kale warbixino sir ah oo laga hayo la faafin doono. gulayntii boqorka waa sheeko dhaba oo soo ifbaxday dhowr isbuuc ka hor kadib dadaal loo geystay boqorka dalka Morocco Mohamed Assadis ayaa keentay in dacwad uu gudbiyo hay'adaha ammaanka Faransiiska. laacibiinta cagajuglayntan ayaa wariyaal u dhashay dalka Faransiiska oo iyagu lagu kala magacaabo Eric Laurent iyo Catherine Cassier. 11 bishii Agoosto ee tagtay ayaa hodheel ragga sarsare oo ku yaala magaalada Paris ay kula kulmeen qareenka boqorka dalka Morocco Mohamed Assadis, kaasi oo ay ka dalbadeen in 3 milyan oo euro uu bixiyo haddii kale ay soo bandhigi doonaan buug warbixino ay ka hayaan boqorka dalka Morocco. qareenka ayaa cabsi ku dhalisay wixii dhex maray labada dhinac, waxaana kulanka xiga kadib lagu ballamay hotel u dhow kii kulankii koowaad uu ka dhacay, balse 7 daqiiqo ugu dambeeyay kulankii labaad ayaa laga guuray hodheelka oo loo guuray hotel saddexaad si loo dhameystiro wada hadalka labada dhinac. 27 bishii August qareenka ayaa sugayay in la dhameystiro wada hadalka ama uu dhageysto wixii handadaad u haray. markii goobta ay soo gaareen qareenka iyo labada saxafi ayaa sheekadu kala cadaatay, waxaana halkaasi ka dhashay bandhig cusub oo ah in midkiiba kaash uu qaato 40,000 oo euro
oo hordhac ka ah 2 milyan oo euro halkii hore ay ka qaadan lahaayeen 3 milyan. Warbaahinta Faransiiska ayaa faafisay safqadan fashilantay iyadoona cadeynta ugu xoogan ee warbaahintu soo bandhigtay ay tahay warqad labada wariye ay saxiixeen taasi oo ay ku tibaaxayaan in sheekada boqorka halka lagu joojinayo xitaa mustaqbalka aan la soo nooleyn doonin. sidoo kale warqadan waxaa baahiyay qaar ka mid ah TV-yada dalkaasi laga leeyahay hase yeeshee laacibiintan ayaa hamigoodii noqday mid fashilmay kadib markii xilli dambe gacanta lagu dhigay. qareenka dowladda Morocco ee u xil saartay arintan ayaa sheegay in daliil ahaan loo cuskanayo warqada ay saxiixeen wariyaashan iyo shakwada laga keenay ugu yaraan 3 garsoore ayaa arintan faraha kula jira. boqorka dalka Morocco Mohamed Sadis ayaa iminka si raaxo leh shaqada kaga eeganaya xilli wariyaasha lagu handaday in lagu xukumi doono 5 sano iyo ganax lacageed oo gaaraya 75,000 oo euro. waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena toddobaadka iyo bariga dhexe. sanadan kaliya qaxootiga magangalyo doonka iyagu ka cararaya dalalka dhibaatooyin ay ka jiraan badan 300,000 oo markaasi muhaajiriin. warbixintan ayaan ku soo koobi doonaa qolka muhaajiriinta caalamka ka cararaya dalalka dhibaatooyinka ay ka jiraan kuwaas oo u baxsanaya meelo nabada gaar ahaan wadamada reer Yurub. hore waxa uu jirtay warbaahinta toddobaadkii tagay si weyn uga hadlaysay dhacdo xanuun badan oo toddobaadkaasi gilgishay dalkaasi Austria. waxay ahayd 71 ruux oo qaxootiga uu ku geeriyooday dalkaasi kadib markii ay ku neef qabatoomeen gudaha gaari nooca xamuulka qaboojiyaha oo ay ku xirnaayeen kaas oo dadkii tahriibinaya ay uga carareen. 24 saac oo dadkaasi ay ku jireen ayaa ay sababtay in gebi ahaanba ay naftooda ku waayaan gudaha shixnada gaariga nooca qaboojiyaha oo halka ay ku jireen. booliska dalkaasi ayaa gacanta ku soo dhigay dhammaan dadka lagu tuhmay iyagoona xabsiga dhigay. dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa si weyn u koreeyay tahriibayaasha sharci darrada ay galaya dalalka Yurub wadamadaas oo iyagu u qaybsan kuwa ogol iyo weli kuwa ilaa iminka aan ogolayn. 7 bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa dadka ka baxsanaya dalalkooda ay dhibaatada ka jiraan ee gaaraya wadamada Yurub lagu qiyaasay 340,000 oo dada taasoo ka dhigan 3 ujibaar inay ka badan tahay tii sanadii hore oo lagu qiyaasay inay Yurub gaareen 140,000 oo kaliya bishii January iyo February ee sanadan ayaa waxaa dadka gaaray lagu qiyaasay wadamada Yurub ilaa dad ka badan 100,000 oo ruux. wadamada ugu badan ee Yurub ay ka soo galayaan dadkaasi ayaa waxay yihiin Macedonia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina iyo kuwa kale. dadka magangalyo doonka ayaa u badan kuwa ka kala socda dalalka Carabta. markana waxaan soo gaarnay xubinteennii jaaliyadaha. toddobaadkan waxaan waraysi la yeelanay Xasan Cabdi Diiriye oo isagu ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan boqortooyada Sacuudiga. dhawaan ayuu safar kaga soo laabtay dalka Soomaaliya isagoo booqasho ku soo maray magaalooyin kala duwan oo dalka ka mid ah.
xasan oo stuudiyaha Somali News ee magaalada Jidda dalka boqortooyada Saudi Arabia ayuu nagu soo booqday isagoo inooga warbixiyay safarkiisii Soomaaliya oo ku tagay iyo magaalooyinkii uu ku soo maray sidoo kale waxa uu noo sheegay inuu qayb ka ahaa siyaasiyiin iyagu u istaagay inay heshiis dhex dhigaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha Ahlus Sunnah oo iyagu heshiis la gaaray maamulka Galmudug daawasho wanaagsan qaar ka mid ah hadaladii uu markaasi waraysiga ku bixiyay Cabdulqaadir oo markaan Soomaaliya kaaga warramo iyo jawiga Soomaaliya jawi farxadeed baa ka muuqday wuxuu ahaa Soomaaliya anigu 11 sano ma aan tagin 11 sano bacdigeed markaan tagay waxaan ku soo arkay israbitaan Soomaalinimo oo dadka shacabka iyo ummadda ku nool Soomaaliya si aad iyo aad sharaf iyo wanaag ah oo aan markii hore halkaan uga tagayay aanan uga tagin baan ku soo arkay markaan tagay Soomaaliya magaalooyinka kamid ah magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho magaalada Caabudwaaq magaalada Cadaado magaalooyinkii sidaas oo kala ahaa oo aan tagayba waxaan ku soo arkay jawi farxadeed iyo isjacayl dadka shacabka oo Soomaalida isjecel yihiin rabitaanna ay u qabaan dawladnimo ay dadku doonayaan ayaan ku soo arkay Soomaaliya ammaanka aad iyo aad ba ammaanku iyo fiicnaa waxaan ku soo arkay waxyaabihii farxad geliyay waxaa kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo nooc walba leh oo nabad sugul leh oo military leh oo police leh oo nooc kasta leh oo si wanaagsan u shaqeynaya ayaa ku soo arkay meelihii aan tagay siiba magaalada Muqdisho ciidamadaas oo marka si cabsi iyo khoof aan mataqaanay aan isgoosooyinka iyo meelaha ay taagtaageen meelaha xarumaha dawladda mid khoof iyo cabsi leh aan ku joogin sidii hore oo Soomaaliya waagii min zaman ay ahayd ayuu aad moodo inay yihiin oo ciidamada caadi iska yihiin oo askarigu qorigiisa wato laakiin uusan kugu caalinayn adiga shacabkaana uusan khoof ka qabin oo ku khadmanaya ku soo arkay Soomaaliya waxaa jiray heshiis dhawaan ka dhacay magaalada Cadaado isla markaana ay ku heshiiyeen Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug heshiiskaasi ahmiyad noocee buu u leeyahay Galmudug iyo dhismaha gobolada dhexe iyo ummadda halkaasi deganba muxuu ku soo kordhin karaa way kulata wallahi Cabdulqaadir waa mahadsantahay waa aad iyo aad waa arrin aad wanaagsan arrinta hadda iga wareysatay waxaan leeyahay heshiiskaas gobolada dhexe kaliya ma anfacayo wuxuu anfacayaa Soomaaliya oo dhan waxyaabaha aad iyo aad bay noo farxad gelisay gudoomiyaha saddexda gole iyo Sunnah wal Jamaaca iyo madaxweynuhu heshiiska ay gaareen waa heshiis Soomaaliya oo dhan farxad gelinaysa cid alla cid Soomaalinimo ku shaqeynaysa ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu taxakumiyo heshiiskaas wixii dhimanna ilaahay inuu noo dhameystiro baan ilaahay ka codsanaya heshiiskaas walaalow heshiis caalami ah oo wanaagsan oo dadka deegaanadaas iyo Soomaaliya oo dhanba farxad gelin doono weeye waa heshiis aad iyo aad la sugayay waqtigeediina yimid waa heshiis ku yimid maaragtay halgan madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo cid alla cid wax garanaysa iyo baarlamaanka iyo cid kasta oo Soomaalinimadu ay ku weyn tahay heshiis laga wada shaqeeyay dadkaasna ahmiyad weyn u leh oo ay sababta tahay hadii heshiiskaas waa nabadna haday dhacdo nuur waa anfacaysa oo Soomaaliya meel kasta joogeen marka heshiis nabadeed weeye waana farxad geliyay oo dadkana ahmiyad weyn wuxuu ugu yeelan doonaa nabadgelyada sababta tahay hadii la heshiiyo oo heshiiskaas oo hirgalo ilaahay sida hadda loo heshiiyay ilaahay u hirgeliyo waa heshiis nabadgelyo weyn oo deegaankaas keeni doona oo Sunnah wal Jamaaca iyo dawladda kaliya aan anfacayne dalka oo dhan iyo dadka oo dhan anfaci doona weyn daawadayaal inta waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkii toddobaadka iyo bariga dhexe oo idinkaga imanaya stuudiyaha magaalada Jidda dalka boqortooyada Saudi Arabia uu ku leeyahay TV-ga Somali News daawadayaal inta barnaamijkan mid lamid ah toddobaadka soo socda aan ku kulmi doono waa aniga Cabdulqaadir Qays ka soo saaraha barnaamijka oo idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo idinna waad ku mahadsantihiin meel walba aad joogtaan la socodka iyo u dhagan gudnaashaha barnaamijka